toban iyo kow sano nin qurba tagay wixii soo shaqeeyay qurbaan sida lagu shaqeeyaa naga og dhididkiisa iyo dhacankiisa soo diray naagtii guri intay ku gadatay dahab ku gadatay markii soo naqday meeshii la rabay noogiis oo soo noogi xoogo inay u raaxayso dejiso u masaajeeso oo tacabkii iyo noogii soo maray isku iloobo aboo gurigaaba laga saaray weliba iyo dalaaqna waa loogu daray. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا وسلامتهن ميلو البو دونيدا دافه إذا أكجوكتان ومركلي ولالكي نحنفي حاجي محمود ويدين كلا هدلاي دانان ميديا فضلا هدية كعصب تاي channel كيغا سبسكرايب كدوكوسي وشير كالله فين لايك ندعكوسي دنبالكا مدقالكا قرالكا سيدا أو صودا دعو شالي هدينا داون جرتي سبسكرايب لان فضلا مانتين وصارا ديقوم حسن قماليلكا نفرو سي اي كوسو غاران موخال والبان سوكلينو isku soo noqod waxaan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo qiso yar oo qurux badan oo isoo jiidatay hadda markii idin dhahay qiso ma aha qiso khayaali ah ama waxaan jirin waa qiso waaqici ah wax dhacay oo dhab ah qisadanna waxaa lagu soo gudbiyay ama sheekadan barnaamijyaalka ugu waaweyn ka mid ah oo ka baxo oo tviyada nilside-ka tviyada ugu waaweyn MBC ayuu ka baxaa waa barnaamij macruuf ah barnaamijkaas waxaa yimaada ama lagu casuumaa dadka dhibaatada geysta ha noqoto familkooda walaalkooda ilmahooda xaaskooda ilaad iskuuriyaan nin naag ninkeeda dhibtay nin naag diid wax noocaas markii oo xal u waayo asagoo doonaya khaladkuu sax oo galay inuu saxo raaligelin ka bixiyo qofkan oo khaladka laga galay diidan in uu raaligelintii qaato oo qofkan khalad ka galay yacni musaamaxo ayaa barnaamijkaas yimaado wuxuu soo gudbiyaa khaladkii iyo dhibta uu sameeyey waxaa loo wacaa marka haddii laga ogolaado ninka qaladka laga galay ayaa barnaamijka lagu casuumaa markuu yimaadane meeshii ayaa waxaa laga sameeyaa musaalaxa bayna annaas labadan qof khilaafkii iyo dhibka dhex yaalo si arrimahooda loo xaliyo marka bad waaye barnaamijka markaa dhex gasho waxaa dhehayus adduunyada dhibaatooyinkan iyo xiqdigan iyo xaasidnimadan iyo dhagartan iyo ilaahay diskuurooya weji la'aantan ma ka jirtaa usa saxmiya waxyaabaha ah filinka iyo musalsalaadka ah ka fiirsanaysa la mathalay ayadoo xaqiiqe oo waaqici ah xataa filimaanta waxyaabaha lagu soo gudbiyey ka darana barnaamijkaas ku arkaysaa ma aha mufabrik wax la montaaj gareeyay ama fabrikana ma waa qiso xaqiiqi ah قصتين waxaan ku soo qaadan doonaa marka ugu horeysa maanta barnaamijyadaas ayaan ka hadli doonaa isbuucyada soo socda hadduu ilaahay karaano hadduu idin cajabiyana hadda leega noo soo saar barnaamijkana share gareeya commentigana warkiina aan aragno si aan anagana u dhiirigalno oo wax badan aan idin soo bandhigno gabar la yiraahdo Nashwa oo u dhalatay dalka Masar waxaa qabay wiil abtigeeda oo habaryarteeda dhalay oo magaciisa la yiraahdo Xamaada way isguursadeen Xamaada wuxuu u safray dalalka khaliijka ka mid ah si uu u soo shaqeeyo ninkan wuu dhoofay ilaahay markiis wadankii oo khaliijka markuu tagay shaqo uu helay bil walba lacag soo diray lacagtii uu soo diray dahabay ku gadatay waxay gadatay apartment yar ama shuga ama shaqo sida u taqaaniin qayb yar apartment ah ay Masar ka iibsatay dahabna way yeelatay 11 sano ay isqabeen waxay u dhashay laba gabdhood oo la kala yiraahdo magacood Muna iyo Janna ay u dhashay ninkii adiga قرب ليه مالي قرب أنا صعب يعني لما يتقرب واحد يعني صعب يعني جدا وفي ملكيس علميس يريركيس وكذا يرادو شقلين أسكو جرا صعب يا رنتي نكان ودن كيسو وصو نقضي ودن كيس مركو وصو نقضي وحو كسو دعي والد كيس انتو كسو بحين ماشي
qurbaha ku yahay ileen telefoon uu soo diraa wuxuu leeyahay maalintaas ee waa soo socdaa safarkayga maalintaas uu kusoo aadaya hooyadiis uu soo hadlay aabiis ayuu soo hadlay okay waxay dhaheen markaa diyaaradda ka soo degto mataarka aa soo degto bal annagana soo mar oo gurigeema uu soo degtay ninkan waddankiisa Masar ayuu kusoo laabtay ehelkiis isla markii waxay u sheegeen naagtaada Nashwa waxay dalbatay talaaq in aafurto nin dhowr sano u maqnaa khaliijka sanadooyin soo naqday dalkiisa u soo naqday naagtiisa xiisaha asku qaba naagtiisa shirkeeda hor imaamay waqtigiis habsii lahaay waqtigii isu shumi lahaay yacni intis diyaaradda soo saaray soo socod keligiisa warmayni ninka yacni markuu safar jiro naagtan ay dalka joogto safarka soo noqonahay diyaaradda markii soo koray ama loo basafkiisa anaa og yahay keligiisa warmay naagtaada bahaaga yaa khaayo yardan ina khabar ودكي مركو كسون نقدي وحيد ما كان أويل كيس وحدي الناك هذا نشوا وحيد البتي نافرتو وصوب بحق قريجي وإمادي وحيري نشوا حاسكي حبيبتي إن خبرتي دي محجرة محاور أنا وحيد مقرب أنا مقربو ما نقول بهني وهذا ده وامر ما وحيد القريجي يجبح قريجي يجبح dahabki iyo guriga ay iibsateen waa asaga dhidadkiisa iyo dhacankiisa iyo wuxuu asaga soo shaqeeyay waxay tiri guriga bax sababtay u tiri guriga iga bax maxay tahay ileen guriga ayada ama magaceeda ku qoratay asaga ma ku qoreen wuxuu sameeyay ninka wuxuu yaalo male wixii soo diray naagtiisa ilmihiisa soo diray waa aroorisa guriga magaceeda ay ku qoratay asaga dhan male xisaabsanin dahabay gadatay ninkan waa la buriyay ماشي اسكو فرين مركي اسفرين اساقي ابيس شقي عمرتين هولاي بلاودين شقوين كودي هولوهودي وتين ايادي درس كذا وحي خالين اني قشو استثمار مالقشي اني سميستو سي اي بعنaa dahabkeedii waxaad maalgashi sameeyso lacagteeda lacag u dhasho waa la waali aqligeed oo lagu dheedeelay lacagtii iyo dahabkii waa khasaartay ayadii sokor iyo dhig kara wab ku soo dhahay masiibo ma hurdee uu masiibo sokor iyo dhig kara wab ku soo dhahay waa jiratay wixii ka lacag xoogaga ay haysatayna waa isku daabaysay gurigiina waa la gaday beesadii saasay ku dhamaatay ilaa xoolo aday ay shaqaysan ninkii soo shaqaysay ba banaan ka dhigtay إنها كوارتد أو كراحيستد أو تمتعد ما أنفعي مكتة نينكي ناكتان جرا كودعدي ديكر إسكورا كودعي غوريغي واغدي دهبكي استثماركي أم مالغشيغي أي غشتي أيا لوغا دعي wax lacag u hartay male zeeray soo istaagtay maxay sameeyay marka maxay sameeyay reer xamarna waxay dhaadaa jini minikaaga waa ka bixiyaa minikiisna ma ku geesahay jini minikaagas ka bixiyaa minikiisna ma ku geesahay micnaheedu mahmaad waxay tahay markino aad ninka diswaashto minikiisna waa ka soo baxay meel kale ma jir jidka inas jiifas xaansha aroori hay asbac jidka soo soomahayo markino mahmaada meeshay ka timid jini minikaaga waa ka bixiyaa minikiisna ma ku geesahay barnaamijkii ay dalbad waxay tiri aniga khaladkaasaan galay ninkeyga u baahanay إن اللي هشيو وكاي
على كل حال لينك يا الله وعي برنامجكي والو عزومي waxay tiri aniga waa kana arintii sida ay u jirtay u sheegtay tomiisa kuusan inay isqabeen wixii soo shaqeeyay iyo hantidiisana dahab ay ku gadatay guri ay ku gadatay haddana wixii ay qasaartay ninkeeda ay u baahantahay bila calaykum naagtaas ninkeeda wiliba walaalkeeda ah oo habaryarteeda dhashay sidaas u khayaantay haddii ay gurigaas way leheen ayadan ay cudur ku dhici leheen dahabkeedii waxeedana ay khasaari leheen ma kula tahay ninkii inay dib ugu baahan lahayd ama ay soo celin lahayd markay 3 sano kala maqnaayeen 3 sano ayagoo kala furan ayada gurigiina gatay wixii hanti ka soo baxan isku daaweysay dahabkii ay haysan iyo xoogo lacag kalena maalgashi gashaa la yiri boursa ama istismaaraad waxa la yiri wixii waa qarxeen waa la khasaari xamar daawada calada markay aragtay inay meel cid la fadhiso labadeeda gabdhana ay aabihii la nool yihiin ay cid la soo istaagtay waxay tiri aniga musaamaha kariima rabaa in la yaafiyaan rabaa ilaahay dartiisa aligu dhaafo ilmihii dartiisa aligu dhaafo talo waxay idin weydiidado naagtaas in la cafiyo ma istaahishaa oo la yiraahdo cafisaa tahay tobi ikoosan nin qurba tagay wixii soo shaqay qurbaan sida lagu shaqeeyo anaga og dhididkiisa dhacankiisa soo diray naagtii guri intay ku gadatay tahab ku gadatay markii soo naqday meeshii la rabay noogiis oo soo noogi xoogo inay u raaxayso dajiso u masaajeeso oo tacabkii iyo noogii soo maray isku iloobo abo guriga balaga saaray wiliba idalaaqna waa loogu daray kaas nafsi ma oho ilmo oho intee loogu baxsaha marka sheekada waa dheer tahay videogana marabna inaan ku dheeraano ugu dambeyn meeshii la isku yimid nin maskiin oo iska daacatay wuxuu yiri tan darteeda ma inta ii keentayna uu yiri wajigeed markuu arkay tan haddii aan ogahay inay inta joogto ma imaan lahayn haddii uu yiri naag kale oo aniga aan qabo oo shisheeye ay sidaan yeeli lahayd waa musaamixi laa yiri laakiin ayada abtigeyga dhali abtigeyga iyadoo dhali ay isaan yeesho yiri waxaan iloobi karo ma aha adinkii waa la xaawil waa la tutuug waa loo waramisi walba wax loo sheegay ugu dambeyn waa cafiyay aniga diin ahala ma cafin lahay adiga tii ahaleed ma cafin lahayd commentiga noo ku soo qor naagtii ninkeeda sidaas u gashay maxay istaahishaa in la cafiyaa mise in la ciqaabo laakiin waxa meesha ku jirto ninka qisadaas ay ku dhacday xumaantaas loo geystay waa cafiyay waxa uu yiri المسامحة كريم muuqaalkayga halkan ayaan kusoo gabagabeynayna dhammaan asxaabta ma santiin meel walba dunida fayda ka jirtiin waxaan idin leeyahay nabadino iyo nolol